dadka ka caawinaya caloosha iyo dadka maxay ahayd inta badan xagga fitnesska caafimaadka aad buu wanaagsan yahay kuwa kale wuxuu ka duwan yahay haddii uu kaa dhaco matalan uu kaa dhaco kale waxba noqon maayo tusaale kuwa kasaas loo tuuraya waxba noqon maayo bandhiga carwada Baahisoor oo in muddo ka socotay magaalada Hargeysa ayaa codsi ka yimi bulshada macaamiisha ee ku xidhan carwada Baahisoor darteed waxa ay madaxda carwada ku dareen oo ay carwadu ka sii furnaan doonto magaalada Hargeysa waxaana intaasi dheer in macaamiisha ay u sameeyeen qiimo dhimis aad u ballaaran oo ka hooseeya marka loo eego qiimo dhimistii hore isla markaana lagu soo kordhiyay carwada alaabooyin cusub haday noqoto weelkii Rabadaanta sariirihii guryaha qalabkii jimicsiga oo baahi weyn ay bulshada qabeen iyo sidoo kale dhammaan alaabooyinka guryaha looga baahan yahay oo ay bulshada qaarkood dalbadeen isla markaana ay tayadoodu aad u sareyso qiimo dhimis ay la dhaceen bulshadii ka soo qayb gashay waxaana ka warbixiyay alaabooyinka ay carwadu soo kordhisay qiimo dhimista labaad ee ay bulshada u sameysay iyo goobta ay carwadu ka furan tahayba iyo sidoo kale xiliyada ay carwadu shaqeyso warbixiyay gudoomiyaha guud ee carwada Baahisoor mudane Cabdiqaadir Axmed Maxamed waxa la macaamiisheeda nagu xidhan Baahisoor General Trading inay hawshii carwadu insha Allah ay noo sii socon doonto muddo 3 wiiga marka hore qorshaha uu ahaa inaan wadno muddo ku dhow bil codsiga mid bulshada aan u shaqeynay macaamiisheeda ah ayaa waxaan ugu darnay muddo 2 wiiga iyadoo runtii qiimo dhimista aan soo gabagabayn doono ma habeenka ciida ka horeeya idamka Ilaahay insha Allah hadii Ilaahay kariyo ciidul fitriga waxa inta inoo dheer oo iyadana aanu sameynay qiimo dhimistii hore aanu sameynay inaan mar labaad ku noqonay annaga oo qiimo dhimis saddexaad dib u sameynay oo item kasto mataqaana baahida dadka ahaa oo inta badan itemyadu waxay isugu jiraan item dadka baahidooda dheeliga ah iyo itemyo baahida mataqaana dheeraadka ah marka itemyadii dheeliga ahaa ee baahida loo qabay waxaan sameynay qiimo dhimis saddexaad baan ku sameynay markii saddexaad waxaan leenahay bulshadeeda reer Somaliland ee nagu xidhan iyo daafaha mataqaana gobolada Soomaalida sida Jigjiga iyo Djibouti inaanu leenahay mataqaana soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qiimo dhimistii wali way idin socotaa codsigii dhawaan idinka aqbalnay waxa ay tahay raaca inaan soo kordhinay agabkii loogu talagalay mataqaana message-ka ama mataqaana duugista iyo haday tahay dhimista weight-ka culayska oo iyaguna mataqaana inoogu diyaara xarunta waxa kale oo inta inoogu dheeraada inaan saacadii shaqadeeda ka dhignay inaan idin shaqeynay 8 subaxnimo ilaa iyo 3 galabnimo gelika dambe iyadana aanu shaqada bilowno 7 habeenimo ilaa iyo 11 habeenimo goobta aad xarunta ka heli doontaan carwo Baahisoor waxaad ka soo laabaysaa xarunta kulliyadda caafimaadka ee Golis adigoo soo laabi doona xagga uu ku yaalo State House-ku markaad soo gaadho goolada State House-ka waxaad eegi doontaa dhanka bidix iyadoo halkaas ka qaban doono hoolka carwo Baahisoor waxa leen macaamiisheeda ku soo dhawaada gacmo furan qaar kamid ah shaqaalaha carwada Baahisoor ayaa iyaguna ka warbixiyay alaabooyinka ay qiimo dhimista u sameeyeen iyo tayada alaabooyinka ay hayaan oo ay qaarkood ku tijaabiyeen kamarada hortooda waxaan qiimo dhimis ku sameeynay carwada Baahisoor oo fiiskii labaad ku sameeynay waxaan alaab quality leh oo guarantee leh waxaan u sameeynay bulshada bisha Ramadaan ee barakeysan alaabada aan ku sameeynay discount waxa kamid ah jeegaga tarayadii iyo huriyadii oo kala duwan soo kale waxaan ku sameeynay agabka loo yaqaan falaasadaha ee bisha Ramadaan aad loo isticmaalo anagoo markii hore qiimaha imika jeegaga oo kale halka yaala ee kala duwan oo guarantee markii hore suuq waxa ka yaala $20 anagu laakiin maanta waxaan siinayna $12 alaabaha aan hayno ee discount ku sameynay waxa kamid ah blanderiskan oo amba gaasida ridaqa oo nooc tayo sare loo shirkada Star leeyahay galaaskan wuxuu dheeryahay waxyaabaha alaabaha kale haddii uu ka dhaco matalan amba uu saas kale dhaco shay maayo soo sidiisa soo qaadanaysa macaamiisha sharafta leh waxay soo kordhinay qaab casri ah oo ka taraya baruurta waliba maxaa la radaa intaas uu badan yahay jilbaha ku jira waxa kale oo ku jira calooshii calool daba isku arkamaysi dadka ka caawinaya caloosha iyo dadka maxay ahayd inta badan xagga fitnesska caafimaadka aad buu wanaagsan yahay waliba buuran faaligi waxaas ka boqol kale aad buu uga caawinaya marka jirka dhamaantood wuxuu ku sameynayaa in
caafimaadka si fiican kor u qaado. macaamiishii ka qayb galay qiimo dhimista labaad ee ay bulshada u samaysay carwada Baahisoor ayaa iyaguna kelmado kooban halkaasi ka jeediyey waxaanay macaamiisha Somaliland iyo sidoo kale macaamiisha sida tooska ugu xidhnaa carwada Baahisoor ay ugu baaqeen inay hore u soo gaadhaan qiimo dhimista labaad ee ay carwadu u samaysay shacabweynaha ku dhaqan Somaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda Somaliland. alaabo qurux badan cadabkii ciyaalka haday noqoto hurdooyin qiimo dhimis loo sameeyay weelal tayo geesa oo aad u fiican oo finadiyo $25 waxyaalo badan oo wallahi aad ku qancinaya oo qalabkii rabadaanta loo baahnaya waxaas oo dhan baad ka helaysaa hamogaanin wada iman kartaa kordhoweyn baa dheer waxyaalo badan oo fiican baa yaala qiimo macquul ah $50 hadaad iibsato oo kale wax kale toon baa lagugu darayaa dadka halkan iman waxaan ugu baaqayaa inay ka soo qayb galaan carwo wanaagsan oo ballaaran oo degan oo dad munaasib ah ayaan weeyaan carwadii baan joogaa hurdadii baa taal cuntadii baa taal wixii wax lagu karinayo wixii lagu saaxanayo wixii wax lagu cunayaba way yaalaan carwada Baahisoor oo muddo sanadkan iyo sanadkii horeba ay ka adeegtay maxay toolay raali gelin fiican dadka si soo dhaweynayso aad ugu faraxsanahay bulsho badan ay ka soo qayb gashay inta kalena waxaan leeyahay ka soo qayb gal fiican baan idin rajaynaynaa inaad ka soo qayb gashaan waxaan halkan lagu soo bandhigay alaab maasha Allah qiimaheeduna way qanciyay waan imid saaka waanan ka iibsaday wixii aan doonayay iyo wax kale oo markaan halkan imid ay ugu dhalatay inaan ku darsado intaba waan ka iibsaday waxaan ugu baaqayaa in carwooyin waxa jira inta la soo bandhigo la inoo soo xayeysiiyo markaynu nimaadno haddana sidii laynagu yiri si ka duwan aynu ugu nimaadno waxaan leeyahay 100% adoo ilaa 80% waxaad ugu iman kartaa qiimaha lagu sheegayo ayaad ugu iman kartaa kagana iibsanaysaa hurdooyinkii baa yaala baabuurtii carruurta taala waxa yaala falaasadihii oo maasha Allah aad u jaban oo alaabtii biifayga aynu ku qurxisanaynay oo waxaan odhan karaa badan maacuunkii alaabta aynu weelka ku cunaynay aad iyo aad aniga horta way qancisay Baahisoor baan soo ayaan ka soo qayb galay alaab jaban oo tayo leh oo adduunka hore loogu arag ayay haysaa ninkii doonaya walkan baa leeyahay waana taas carwadu way furan tahay alaab jaban iyo alaab tayo leh waa laga helay macaamiishan soo baqay waxaan ugu baaqayaa bulshada Somaliland ku nool gaar ahaan dumarka wax iibsadee waana ka soo qayb galaan carwada insha Allah waxay ka helayaan muxuu ahaayay soo dhaweyn waxay ka helayaan alaab jaban oo tayo leh isaga ogaada waxa hayaan weelkii oo tarayadii leh oo kooyleen jeegagii bay hayaan waxa hayaan dusuudii waxa hayaan falaasadihii waxa hayaan weelkii carruurta kabadhada wax loogu ridayay alaabtii hurdooyinka waxa hayaan baasladii carruurta waxa soo ku koobi karayo ma waxay carwadu ku taalaa wadada u dhaxaysa jaamacadda Golis iyo sidoo kale hoteelka Summertime marka aad gaadho garoonka Turkiga ee kubadda cagta ayaa waxa halkaasi ka qabanaya boorka bilicda sane ay ku leedahay carwada Baahisoor Madaahir Nuux Maxamuud